سلام مدحوينه هو صلاة دب مدن مدحوينه waxa salaantaada u diyaara cutubya ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday kuliyadda tababarka ciidamada saraakiisha ee Cabdulaahi Askar ee deegaanka Dararweyne halkaas oo ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaadiidka gaashaaman ee difaac qaran waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u koorgalay xaaladda guud ee ciidamada xarunta ku sugan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa ka warramay qorshayaasha lagu horumarinayo ciidamada booliska Soomaaliland ee xukuumadda madaxweyne Biixi ay wado waxaan u diyaar garoobaynaa insha Allah inaanu isbedel weyn sameeyno oo aanu arday reer saraakiil soo saaro iyada kuliyadii imka aad furi doonto dhawaan gaadiid badan oo taladaadii iyo maskaxdaadii diyaar garoobeen insha Allah sanadka dhow soo socdo waxaan u diyaar garoobi doonaa inuu ciidanka boolisku intuu isbedelo ta gudaha ka adkaada insha Allah inaanu ciidan birmada oo adag aanu dhisi doono ciidanka militariga insha Allah iyagana caawiya waxa kale oo rabaa in halkan kaga faa'iideysto kelmad digniina u diro kuwa gudaha had iyo jeer cadawga gudaha ku jira noocu doonaya ha ahaado kuwa caalamka oo dhan cadawga waa ha ahaado kuwa criminalka ah ha ahaado kuwa afmiishaarinta nabadgelyada waxyeela ciidanka boolisku nin cid ka baxsan karta ma jirto ishana uu ku haya insha Allah Soomaaliland waxaanu rajaynaynaa inaanu ka dabargoyno waxyaalaha noocaas taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo gaasnuux Ismaaciil Taani ayaa sharaxay guulaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku talaabsadeen muddooyinkii u dambeysay mudan madaxweyne munaasabadani waataynu mari jiray 18 May waxa dhacay xanuunka adduunka oo dhan aafeeyay waxa markaa noqotay dadkuna aad bay u jeclaan jireen 18 May markay tahay in ciidamada arkaan way ku farxi jireen maadaama tii suurtoobi weyday aba TV-yada laga daawado amba website-yada waxaan isku daynay in dadka ka farxino oo toosno 18 May mudan madaxweyne adaa ku mahadsan muddadii aad joogtay ee xilka haysay wax badan baad ciidamada gelisay annagana waxa waajib nagu ah dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta ha joogaane in maxay ahayn aan dadaalo oo dalka yaga oroon marino intaan kari karno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay ujeedada uu kormeerkiisani daaran yahay maanta halkan waxaan u yimid maadaama xanuunka jira corona awgeed aynaan u samayn karin dowladda ciidan oo ciidamada midowga isku dhagaaday waxaan ogaanay inaanu u nimaadno door bidnay inay joogaan ardaydii ku habooneed in ay matalaan ciidamada ee soo koraysay hadday yihiin leelisay kale shaqarba iyo guuto ka mid ah guutooyinka ciidanka oo qolada taangistaha iyo tiknoolajiyada ugu horeeyaan oo halku u diyaar garoobayay inay maraan sanadkan suuqyada magaalada oo aanay suurtoobeen xanuunka awgii waxaan ku amriyay bariiska dadaalka badan ee tiknoolajiyada cusub ay soo kororsadeen ee u soo diyaar garoobeen nabadgelyada xajintoodii ciidankooda quruxda badan iyagana waa ku amriyay diyaar garooba dhammaanteen waxay noo dardaarana dal jacayl geesinimo nafurid leh iyo xirgudasho haddii ciidamada la yahay iyo qof kasta oo muwaadinaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bogaadiyay saraakiisha carbiska ku qaadanaya kuliyaddan gaar ahaan gabdhaha saraakiisha ah isagoo madaxweynuhu dhiirigeliyay dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ku jirta waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa oo maanta xusuus badan in dafcadda koowaad ee leeri sarkaal ay yihiin kuwii koowaad ee ka baxaya dalka gudihiisa ku qaadanayo xidigo oo sarkaalnimaha ku gaaraya dalka gudihiisa inay yihiin oo nasiib hore waa taariikh waan ku hambalyeynaya
waxay intaa u sii dheer waa markii u horreysay ee gabdho Somaliland ah tiradoodu ay badaan 10 gabdhood oo naftooda u soo horay inay qaataan tababar layliska oo ciidamada ah oo intii la maray ayay dhammaysteen aad iyo aad baan u hambalyeynaa waan soo dhaweynayaa waxa kale oo soo dhaweynayaa ardayda shaqo qaban waxaan ku hambalyeynayaa adkaysiga ay u dhawaradayeen in muddadii 3 bilood ahayd ee ay joogeen aan qof qori ka soo bixin xidooda iyagoo oo raacaya tilmaamaha caafimaadka waxa ka muuqata inay yihiin aqoonyahan qaadanaya tababar ciidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidamada booliska ee qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku ammaanay dadaalada wax ku oolka ee qarankooda ay u hayaan ciidanka booliska waxa balyeelaya shaqooyin wanaagsan oo aad iyo aad u hawl badan ay dalka ka hayaan horta waxaan idin sheegayaa booliisku waa jiidiyey waa gurigii hawsha ku dhacda ciidamada kale kuma dhacdo 24 saacadood oo ciidan dagaal ku jira mar walba aroor garab habeen yani hawsha waa ciidanka qura ee adoonsa war dagaalka meel mar qura joogsanay ciidanka waxaynu ku amreenaynaa hawsha culus ee ay u hayaan dalka khaasatan magaalooyinka waaweyn gudahooda oo ay ka haystaan dhibaato badan waayadan intan xanuun karo soo kordhay xataa jaadkii la joojiyay wacdaniga ay ka muujiyeen guusha ka soo yeeno waa ku amreenaynaa waxaan dhaafaya ciidanka qaranka horta dee maanta waxay nala joogaan boqorkii dagaalka ayay soo dhigeen oo maanta way salaameen taangigu waa boqorka dagaalka la yidhaahdo marka ciidamada laga hadlaayo markuu taangistanigu yahay cid uga ka baydhaa duuliyaha diyaaraddu ka baydhaa ka markabkooda waa ka baydhaa ka infantariga waa ka baydhaa boqorka dagaalka la baxeen waana yihiin waayo dagaalku dhan wuxuu kusoo raray cadow inaad jebiso goobta la isku haya inaad ka qabsato taangigu ma qaban kara dhulka oo ciidanka infantariga la socdo infantariga la socon maayo haddaanu taangu jibaaxayn cadow iyo caqabadaha u dhigay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay muhiimadda ku duugan barnaamijka shaqo qaran iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay markaan shaqo qaran muddada yar la isugu keenay waxa koob ka ay nasdex gashaan inaad isbartaan inaad fikirkiina iyo sida wax u wada lahaydeen isla fahamtaan waayo maxaa la isugu baraya maxaa la isugu daraya haddii alla yiraahdo muddo dhow oo berita ah waxa noqonaysaa madaxdii dalkan waxa noqonaysaa madaxweynihii iyo wasiiradii iyo dhakhaatiirtii iyo safiiradii iyo looyradii iyo tujaartii iyo qaarkiin sanaadina noqon laga yaaba iyo culimada waxa noqonaysaa dadkii berita dalkan u talinayay marka waxa lagu dadaalayaa idinkoo is yaqaana oo hebel iyo hebel isu garanaya oo doodi kara oo dal hogaamin kara oo iswada yaqaana oo deegaan walba garanaya inaad berita noqotaan madaxdii dalka oo hubaala kuliyadda tababarka ciidamada ee Dararweyne ayaa lagu soo bandhigay cududda ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo goobtaana ay ku sugnaayeen saraakiisha carbiska ku qaadanaya xeradan iyo dhalinyarada ka faa'iideysanaysa barnaamijka shaqo qaran iyo guuto ka mid ah ciidamada taangiyada iyo tiknikada ee gaashaaman ee difaac qaran